markaanu ka helayno deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool ayaa waxa ay sheegayaan marqanimadii maanta ciidamada labada dhinac ee maamulada Somaliland iyo Puntland ay isku adeegsadeen madaafiic culus. dad goobjoogayaal ayaa dalsan waxa ay u sheegeen in madaafiicda ka hor labada ciidan ay isku adeegsadeen rasaas ka dhacaysay qoryaha fudfudud ee loo yaqaan AK-47 ugu yaraan 30 daqiiqo markii ay socdeen rasaastaasina kadib ay dhaceen madaafiic dhinacyadu ay isku adeegsanayeen. wararka aanu helayno waxa ay sheegayaan in ciidamada maamulada Somaliland iyo Puntland maanta ay isku tuureen madaafiic ka culustii maalmihii ugu dambeeyay isku adeegsanayeen. gacan ku haynta deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool ayaa waxa isku haysta maamulada Somaliland iyo Puntland oo midba midka kale uu sheeganayo. labada dhinac ilaa iyo hadda kama aysan hadlin madaafiicda maanta ay isku weedaarsadeen deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool. laakiin waxaa la soo sheegayaa in madaafiicdaas ay ka dhasheen khasaare soo gaaray dad rayida iyo dhinacyada madaafiicda isweydaarsaday. inkastoo ilaa iyo hadda aanay jirin cid ka madax bannaan labada dhinac oo xaqiijin karta khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay madaafiicdan maanta ay isku garaaceen labada ciidan ee maamulada Somaliland iyo Puntland. deegaankan ayaa maalmihii u dambeeyay waxaa ka taagnaa colaad xoogan oo u dhaxaysay labada maamul oo midba midka kale uu sheeganayo in isagu deegaan ahaan halkaas uu ka taliyo. dhinaca kalena wararka aanu helayno waxa ay sheegayaan in madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi isagu la doonayay in maanta uu gaaray deegaankaas sababna ay u tahay madaafiicdan in maanta lala bartilmaameedsado deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool.